soo dhawaada channelka naga socotaan waa macallin channel haddii markii ugu horeysay channelka fadlan subscribe inoo saar waxaan falanqeyn doonaa wararkii ciyaaraha. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta soo dhawaada halkaan la socotaan waa macallin channel waxaan dul istaagi doonaa aan falanqeyn doonaa waxaan ognahay in caawa u bilaaban doono Champions League waxaan ognahay in kooxda Chelsea tababaraha Tuchel uu difaacanaya Champions League sanadkan uu yahay tababarihii sanadkii soo dhaafay ku raaxaystay isagoo ognahay ku biritaankiisa kooxda Chelsea uu tababaro u noqday in runtii koobkiisa ugu horeeyay uu ahaa Champions League uu ka qaaday dhigiisa Guardiola ee kooxda Man City hadda su'aash inta badan isweydiinaya waxay tahay sanadkan yaa ku madax degsan doona Champions League yaa qaadi doona si Tuchel ma labaysan doona runtii kooxaha aad u kacsan waxay kamid yihiin Bayern Munich oo caawajihaysa kooxda Barca sidoo kale Man City ayaa runtii aad u kacsan Paris ayaa ayadana runtii ah kooxda laga cabsi qabo sanadkan ayadoo ognahay in ciyaarahano runtii tayo leh halkaas iskugu geeyay walo Paris ay la ciyaarayso koox aan saaw adkeen laakiin ay wajihi doonto kooxda Guardiola Man City ayaa runtii caawa markii ugu horeysay Champions League ayaa ciyaari doona waxaan tahay ciyaarta ugu xiisaha badan inta badan taageerayaasha sugaan waa ciyaartan horteena taalo Barca ayaa wajahaysa Bayern Munich waxyaabaha aadka runtii loo xusayo waxay tahay Barca ma argusan doonta sideedii labadii ma soo kabsan doonta ceebtii ku dhacday runtii ma argusan doonta caaba walow ay tayo marka si loo fiiriyo qaab ciyaartoy ahaan aysan haysan ciyaartoy la dhihi karo way ku argusan karaan haddana waxaa moodaa kubadda cagta wax walba ka filo si walba ha ahaato ciyaarta u xiisaha badan ee caawa dhici doonta waa ciyaartan Barca ee wajahaysa kooxda Bayern Munich Bundesliga ka ciyaarta iyo kooxda reer Spain ee Barca ee madax isdari doona taasoo runtii ka dhigan in Barca ay shaqo u taalo caawa runtii ciyaartan ayaa waxay tahay ciyaarta lagu kala qiimeyn doono Barca kadib Messi xaaladeeda iyo meesha ay taagan tahay iyo runtii qaab ciyaareedka soo noqon doono ayaa caawa lagu kala gaan doonaa markay ka hor imaato kooxda Bayern Munich dhanka Bayern Munich waxay ognahay inay ciyaareen runtii 3 kulan ay ciyaareen horyaalka waxyaabaha la yaab kale oo runtii argagax ku ridayo Barca ama kooxaha ka hor imaan kara Bayern Munich waxay tahay 3 kulan ay ciyaareen Bayern Munich waxay dhaliyeen 21 gool ma jirto koox dhalisay 5 horyaal marka si loo fiiriyo taasoo runtii ka dhigan in Bayern Munich caawa tahay koox laga cabsani karo dhan walbaba walow Lewandowski uu ka maqan yahay dhaawac uu ka maqan yahay laakiin haddana waxaa moodaa inay tahay koox aan u dhuntanin hal ciyaartoy runtii waa kooxaha inta badan Bayern Munich markaas u fiirisay awood ahaan runtii laga cabsado marka Champions League ma sanadii ugu dambeysay waxaa moodaa marka la fiiriyo goolasha ay dhaliyeen ciyaareen 21 gool iyo 3 gool 3 ciyaartoy 3 ciyaar iyo 21 gool wax isku dhigma waa wax aad cajiib ah waxaa moodaa in Barca nafteeda ay ku awoori doonto argagax markaas u fiirisid taasoo runtii marka si loo qiimeeyay saadaal laga bixiyay runtii labada kooxood la isku bardhigay ciyaartooyada la fiiriyay la qiimeeyay ayaa waxa soo baxday in taageerayaasha inta badan u codeeyeen in runtii kooxda Barca caawa dhulka la dhigi doono ay noqon doonto guuleystaha caawa 3 dhibcood qaadan doonto kooxda Bayern Munich ee reer Germany laakiin ma dhihi karo markaas u fiirisid wax walba waxaan gaan doonaa ciyaarta kadib Barca waa run nafteeda waxay rabtaa inay nafta ag dhigto ay argusto saanay sheegnay ceebtii soo gaartay sanadka hore iska dhaqdo ayadoo runtii caawa waxyaabaha la diiwaangeliyay ay kamid tahay in Barca ciyaari doonto Messi la'aantiisa markii ugu horeysay ay Messi la'aantiisa caawa Champions League ciyaari doonta Messi ay caawa ka maqnaan doona Barca markii ugu horeysay taariikhdiisa kubadda cagta ciyaaraankaas reer Argentina waxaa moodaa inuu ku jiro line-upka kooxda Paris Messi ayaa caawa ka maqnaan doona kooxdiisii hore ee Barca ayadoo wajahaysa kooxda Bayern Munich laakiin waxaa moodaa markaas si u fiirisay runtii Spain waxaa moodaa ciyaar klabada Spain waxaa moodaa sanadkan in cabsi saas laga qabin ayadoo ognahay in runtii liigeedka uu hoos u dhacay marka la fiiriyo ciyaartoy ahaan qaab ahaan markaas guud aan loo fiiriyo la isla bardhigo horyaalada kaleeto waxaa moodaa liigeedka sanadkan in cabsi badan jirin
saadaasha runtii inta badan la qiimeeyay ee tahay kooxaha guuleysan doona Champions League inta badan inay ka imaan doona horyaalka Premier League London laga dhigay Bundesliga ayaa iyo League 8 ayaa ku jira 2 iyo 3 walow Barca nafteeda I mean kooxda Paris League 8 nafteeda laga cabsi qabo laakiin waxaa moodaa in runtii khibrad ahaan marka loo fiiriyo ay ahayn koox champion laakiin ay haysto sanadkan ay haysto ciyaartooy Champions League khibrad ku leh waxaan ognahay in Ramos halkaas uu joogo oo khabiir Champions League ah 3 sano isku xigta soo qaaday waxaa kaloo halkaa jooga Messi oo naftiisa ah runtii ciyaarahan Champions League oo runtii aad looga cabsado laakiin koox ahaan marka la fiiriyo kooxda Paris ma aha koox laga cabsan karo oo la dhihi karo waa xeeladaha khibrad Champions League ma aha kooxaha Premier League ee waxaa moodaa inay awood ahaan khibrad ahaan tay ahaan Champions League ay ugu diyaarsan yihiin kuwa ka ah kooxda Man United Liverpool iyo Chelsea ay saddexda kooxood runtii oo ah Premier League ka ciyaaro Champions League ah kooxaha aad looga cabsado marka laga hadlayo Champions League Man City nafteeda ma yareysan karo sanadkan final ayaa sanadka soo dhaafay final ayaa tagtay hal eber looga qaaday laakiin ma aha koox champion oo laga cabsado oo la dhihi karo okay waa koox Champions League qaaday ama waa koox runtii oo Champions League oo looga cabsi qabo xaaladaha qof islaamaya marka si walba ha ahaato anyway League 8 ma aha league oo la dhihi karo sanadkan wow ciyaartay ay joogto waa laga cabsanaa macnaha Champions League looga cabsado ma aha Barca iyo Real sanadkan waa kooxaha lagu xisaabtami karo marka Champions League imaato laakiin waxaa moodaa runtii Barca kelima la qiimeyn karo League 8 marka la isku bardhigo awood ahaan koox ahaan marka la fiiriyo iyo marka la isku bardhigo Premier League ahaan Premier League ee sanadkan ka shidan iyo League 8 ee ka shidan marka la isku fiiriyo ciyaartooy ahaan daawasho ahaan marka la isku fiiriyo xiisaha dhan walba marka la isku qiimeeyo runtii waxaa moodaa League 8 inuu hoos u dhac weyn ku imaaday waxaan xasuusnaa ciyaarta ugu dambeysay isbuucii soo dhacday ee dhaxmartay Newcastle iyo kooxda Man United Cristiano Ronaldo ciyaartiisa ugu horeysay kooxda Man United muddo 20 sano kadib waxaa moodaa inay ahayd ciyaar runtii amood in El Clasico fiirsanaysa daawadayaasha wariyaasha xamaasadda ciyaarta saxaafadda marka waxaa moodaa in Premier League uu yahay imaatanka Ronaldo in wax kale ka dhigay League 8 kan imaatanka Messi in wax kale ka dhigay taasoo runtii hoos u dhac weyn ku keentay League 8 markaas u fiirisid Champions League waa bilaaban doona caawa runtii waxay noqon doontaa kooxda guuleysan doonta weli ma la qiimeyn karo laakiin marka loo fiiriyo awood ahaan loo fiiriyo kooxaha iska hor imaanayo waxaa la dhihi karaa sanadkan Champions League waxaa lagu soo celin doonaa Premier League ama League 8 ayaa waxaa la geyn doonaa dalka Faransiiska oo kooxda Paris ay qaadan doonta ama Premier League ayaa runtii la baysan doona oo kooxda Chelsea ah difaacanayso ama Chelsea ama koox kale ka tirsan horyaalka Premier League ayaa qaadan doona markaas u fiirisay waxa ognahay in Solskjaer naftiisa uu hadlay uu sheegay in kooxda rabto inay koob ku guuleysato Man United asoo sheegay in oo mar uu ka hadlayay xaaladda Pogba ayuu sheegay in runtii joogitaanka Pogba ee kooxda Man United ay go'aamin karaan milkiilayaasha kooxda iyo ciyaartooyda kooxda ayuu sheegay Solskjaer mar la weydiiyay xaaladda kooxda inay koob guuleysan karto ayuu sheegay in ay runtii ay diyaar u yihiin ciyaartooyda Man United inay koob ku guuleystaan taasna runtii qiimeynta la qiimeeyay ciyaarta ugu dambeysay la arkay in imaatanka Ronaldo kooxda Man United uu ka dhigay koox ciyaartooyda runtii niyad leh ay haystaan qof oo leader ah garoonka ku jiro macna markaas u fiirisid awood ahaan weerar hadda laga cabsado saas United ma laho laakiin qad kala dhexe haddii Pogba uu sii joogo United nafteeda Champions League runtii waa looga cabsan karaa Chelsea ay joogto nafteeda oo aad difaacanayso ognahay in imaatanka Lukaku Chelsea wax kale ka dhigay Man City nafteeda ma yareysan kara Liverpool ay joogto oo khibrad Champions League leh 100% walow qad kala dhexe uu yahay qad dhexe oo runtii moos ah iska dhaxmari kar markaas u fiirisid ka tagitaankii window kadib ay qad dhexe laga cabsan kara kaysanin Arsenal warkeed iska dhaaf ayada waa alow sahal xataa Euro League ma ciyaarayso laakiin kooxda Man United Chelsea Liverpool iyo Man City waa afarta koox Premier League ka ciyaarto ee Champions League sanadkan joogto oo la dhihi karo Premier League waxa Champions League waxa la keen doonaa horyaalka Premier League sanadka labaad u xiriira ama waxa la geyn doonaa dalka Faransiis ee kooxda Paris ay qaadan doonta laakiin ciidan League 8 iyo Bundesliga runtii Bayern Munich si uu adag tahay laakiin
ciyaartooyda joogta Bayern Munich waa ciyaartooy adag laakiin waxaa la dhihi karaa ma laha ma saadaalin hadda saas oo laga cabsado Bayern Munich ma laho marka loo fiiriyo horyaalka Premier League ciyaartooydooda iyo tayadooda iyo liigaadka kooxda Paris markaan soo qaadano anyway ciyaartan caawa dhici doonta ayaan arki doona cidda guulaysato ayadoo runtii Messi la'aantiisa ee Barca ciyaar doonta markii ugu horeysay taariikhda kubadda cagta halkan staan oo macallin channel haddii tahay markuu channelka aad soo booqatid fadlan